xafladda tani oo isugu jirtay xilwareejin iyo soo bandhigid wax soo saarka maxadka barashada culuumta diinta ee degmada Banyaale gobolka Cayn ayaa ka dhacday barxadda maxadkaasi. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada diin tiro badan oo ka kala yimi magaalooyinka Laascanood, Buuhoodle iyo Woodward, kuwaasoo dhammaantood wax lagu farxo ku tilmaamay wax soo saarka muddada kooban ee maxadka Banyaale. maxadkan ayaa waxaa qalabeeyay isla markaasna socodsiintiisa iyo furitaankiisaba iska lahaa ururka Anfac Foundation oo ah urur ka jira dalka dibadiisa isla markaasna ka shaqeeya arrimaha horumarka degmada Woodward iyo deegaanada hoostaga. ugu horreynkaasi waxaa ka hadlay Sheekh Cabdiraxmaan Ciise oo maxadka gacanta ku hayay iyo Sheekh Axmed Maxamed Saleebaan oo kamid ah culimada diinka gobolada SSC. maxadkan markii la dhisay waxaa dhistay hay'adii loo jeeday Haas Petroleum dacwada iyo culimada gobolka Sool way hadii la ka dhigay way hirgeliyeen dhismaheeda. markii muddo la dhisay waxa suuragali waayay muddo dhismihiisii inuu macadka la furo furitaankiisii. arintaas ayaa waxay u kaliftay inaan marka hore anigu aan macadka furo bishii labaad sanadkan 2020 ayaan macadka furay. marka waxaan waalidiinta oo tashi aan la sameeyay darteed iyo culimada magaalada joogta ayaan macadkan aan furnay. saad arkaysaanba waxaa macadka soo xaadiray 100 arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira 2 galaas ka kooban oo bilow ah oo iyo 45 hablood oo dumarka waaweyn isugu jira gabdhaha waaweyn iyo hooyooyinka isugu jira oo iyaguna ma artay barqadii dhigta maadaama ay magaaladu iskuul lahayd. muddada yar kooban ilaa iyo bishii labaad ilaa bishii shanaad waxa aanu runtii aan oran karnaa waxaan gaarsiinay meel magac leh oo wanaagsan oo ardada nashaadkeeda ka arki doontaan iyo dareyska say u sitaan. runtiina dadka magaalada degan si wanaagsan oo kalsooni leh oo kalgacal leh oo xiise leh maadaama magaaladani muddo badan xagga waxbarashada diinta ay dib uga hadhay si wanaagsan bay u soo dhaweeyeen. insha Allah iminkana waxa weeye waxaan anigu maadaama halka gaarsiiyay aan hadii alla ka dhigayo maamulihii hawshan igala wareegi lahaa oo juhdi badan nagaga baxay oo aan ka keenay meel fog isagoo halka waxbarasho iyo shaqaba kaga jira insha Allah ta'ala jaamac Maxamed Goox. marka waxa weeye maantana reer Woodward waxaan idin sidaa nin igana aqoon badan igana dhalinyar igana karti badan anigoo insha Allah ta'ala aan rajeynayo hawsha inaan ku garab taagnaan doono. waxaan aad u mahad celinayaa Ilaahay mahadiisa ka bacdi culimada maanta ay noo timi oo arintaas markii ay nadwadii Woodward ay dhamaatay runtii aqbalay inay macadka furitaan u sameeyaan labada maamulona xilka u kala wareejiyaan. reer Woodward iyo cidii gurigan meesha macadka dhistay iyo ururka la yiraahdo Anfac oo isagu dhaqaalaha inta anigu aan meesha ku joogay iyo hadii alla ka dhigayo qalabaynta bixinayay oo aad iyo aad uga qayb qaatay oo dhiirigelinta sameynayay ururka la yiraahdo Anfac oo xagga dibadda ka dhisan Mareykan iyo Canada iyo meelo kale iyo Ingiriiska iyo dhul badan jooga oo hablo u badan ayaa insha Allah ta'ala qayb weyn ka qaatay oo in loo mahad celiyo oo loo duceeyana way mudan yihiin. maanta halka waxaanu isugu nimid in Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisii kor loo qaado oo la barto oo ubadkeennii iyo dadka kalaba ee waaweynba inay wax bartaan oo shariicada Ilaahay bartaan. magaalada Banyaale ay kala soo qayb galay aniga iyo Sheekh Cabdiwaahid Xaashi iyo culimo kale oo anagu halkan maanta aan soo gaarnay intii kalena nadwadii markay dhamaatay ay anbabaxeen aad baan ugu faraxsanahay. runtii waxa Ilaahay loogu mahadnaqo subhanahu wa ta'ala. cilmiga barashadiisu waxay la tahay isu sheegi mayno waliba cilmiga shariicada oo Ilaahay ku baraya sidaad u caabudi lahayd wixii xalaala iyo wixii xaraana dariiqa saxa dariiqa baadilka waxa soo dhan ku kala cadeyn lahaa waa dariiqa jannada waxa jannada lagu galo waxa cilmiga shariicada oo la barto. macadkii in la baahiyo jiritaankiisa iyo inuu shaqeynayo iyo xil wareejinta maamulkii Sheekh Cabdiraxmaan oo waday iyo soo maaragtay Sheekh Jaamac oo isaguna la wareegaya waxaan leenahay macadkan
haddaad tihiin bulshada reer banyaal ha la garab istaago qurbajoog haddaad tihiin oo qurbajoog cid ay ku maqan sida ururka anfac ee hore u taageeri jiray iyo inta kale aan hore u taageerin macadkan ha la garab istaago maanta wax kale oo aynu maanta dhulkeennan wax badan baa inaga yara waxaysan laakiin diinta ilaahay ee goboladan sool iyo sanaag iyo cayn inta hadda dadka degaanku ay degan yihiin waxyaabahan ku faano ee adduunku lagu soo eego waxa weeye diinta ilaahay inay sarrayso oo macadyada lagu tartamayo odayaashu waa in loo bilaabo alifka ninkaan garan ceeb maaha in la baran baa ceeba gabdhuhu way baranayaan caalamka meel kastoo la joogo waxyaalaha yaab kale waxa weeyaan raggii waxaad moodaa in qur-aanka ku soo degaya ma qur-aan baa soo degaya qur-aan iska soo degaya ma jiro dumarka wax baranaya carruurtii innagu xaggaynu ku maqannahay waa wax la isweydiin u baahan marka waxaan leeyahay ha la ilaashado macnaha guntiga dhiisha ha la iskaga dhigo waxa weeyaan macnaha isaga ayaa maaragtay magaalada insha allah lagu bedelayaa intaa kadib waxaan u mahad celinayaa runtii dadkan ka soo qayb galay allaha barkeeyo odayaal iyo dhalinyaro iyo dumar iyo waxgarad iyo wax walba iyo inta soo abaabishay intii sheekh cabdiraxmaan iyo ragga hore u furay intaa kadib culimada maaragtay inoo timi meesha fog ka timi ee ihtimaamka intaa leeg soo siisay iyagana ilaahay subxaana wa tacaala miisaan xasanaatim ha ugu daro ilaahay ha xifdiyo ilaahay subxana wataala awlaadda ha u xifdiyo ilaahay iyagoo dhan ha barakeeyo intaas ayaan maaragtay insha allah taala waxaan kusoo koobi lahaa waxaan ku dari lahaa labada qole halkan laga magacaabay anfac iyo haas waad ogtihiin oo haas baa macnaa ku tabarucday inay bixiso khayrkan iyagana waxay haystaan allah ha u barakeeyo allah ha u barakeeyo ilaahay ujeeddada ay ka lahaayeen oo inay ilaahay u dhowaadaanana ilaahay ha ka aqbalo qoladan kale iyaduna anfac ee u qalabaysay oo tiri annaguna waxbaan kaga qayb qaadanaynaa iyagana ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo ciddii kale ee ka qayb qaadanaysay ciddii jecelba waxaynu doonaynaa qurbo iyo macnaha iyo wax gudaha joogaba in laga qayb qaato marka allah ha idin barakeeyo cabdiraxmaan ciise oo isxilqaamay oo maxadkaa ka gilgishay oo furay oo ilaa bishii labaad ilaa bishii shanaad waday oo run ahaantii marka aad sii eegto dadkaasu intaa yar sida uu waxu bartay aad iyo aad aan anigu ula cajibo oo aan isleeyahay aad iyo aad u jeclaa sanad inuu noo wado runtii rag badanna waan kula xansha shaqada oo halkan fadhiya markii la yidhi shalay cabdiraxmaan waa wareejinayaa sanad inuu inoo wada ahayd hadduu sanad wado waa fiixi lahayd waxaan mahad u naqayaa labada qolo ee halkan laga magacaabay ee shirkadda haas iyo ururka anfac oo wax badan ka qabtay kolley degaankan aan joogo banyaal wax badan oo aan la koobi karin oo iskuul leh oo maxad leh oo haddii ilaahay idamkeeda leeyahay dadka taageeradiisii abaarihii leh oo ilaahay u diray abaarihii inay aad iyo aad u taageeraan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ururka urur jira allah ka dhigo miisaanka xasanaadka dhammaan dadka allah ugu daro ilaahayga inoo saamaxay inaynu isugu nimaadno madashan iyo sharafkan iyo diinta guriga ilaahay lagaga hadlayo ilaahay lagu baranayo aad iyo aad mahadda ilaahaydaa iska leh alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin intaa bacdi mahad labaad waxaa culimada soo jidaashay waxa wacan wiilka ka qabanaysay ee halkan noogu timid ee maxadka noo furasay noo kala wareejinaysay wadaadkii hore cabdiraxmaan ciise khayr allaha si aada u shaqeeyey ee magaalada iftiimiyey ee sheekh jaac maanta ku wareejinaysa ee soo jidaashay ee dadkeeda iyo degaankeeda iyo nolosheeda ka gilgilatay inay diinta ilaahay ku wacdigeliso aad iyo aad baan u salaamaya waana mahadsan yihiin salaamanaa ururka anfac oo aad iyo aad iyo isna u shaqeeyey oo aad iyo aad isaga u qalabeeyey maxadkan markii ay dhistay shirkadda haas ilaahay jisaaye iyo khayr ha ka siiyo oo si aad iyo aad oo qurux badan oo sharaf lagu dhistay oo aan ugu mahadnaqano oo muraadkii ay ka lahayd in ilaahay miisaanka xasanaadka yana u jaaro aan ugu mahadnaqanaa aad iyo aad ugu ducaynanaa ilaahay waxdan inuu siiyo anfac labadii macallin ee haas ballan qaadayna waa codsananaa siday u ballan qaaday inay noogu hirgeliso
أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما في حدك لو وقرت إذا من تكون بإماما مطاعا إن نهيت نمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت حملتني أرضعتني يا روحي وحياتي أنتما ضوء السماء كالنجوم الساطعات كل شيء بأحسن وحكستي كدقاقنا وإن أيك بلاونا بسنك إلهي تعلن تيبرناينو تربية توسن تابك لنتادا هذا ورود وأنه كودني نعود ندوذا كودني وحصوص عدة ترتمه جامعه ومغلي سابان ملاينية سنة كصوص عدة ترتمه صوص عدة سنة والبوال لقبان دونا يدين كقرسوا من هذا بقى رير بيالو قرآن كبالغو ترتميا علمي كبالغو ترتميا هرمر كبالغو ترتميا علمادو كليا معها waxay wax ku qiimeyn doontaa 10 ama darsi la bixiyay magaalada nadaafadeedii maxaa laga qabtay akhlaaqdeedii maxaa laga qabtay mukhadaraad joojintii maxaa laga qabtay bidca joojintii maxaa laga qabtay arrimo badan baa sheekha la weydiin doonaa marka haddaad meesha ku hartaan idinka idin taala tawfiiq baan idin rajeynaynaa assalaamu calaykum waxaan runtii rabaa inaanu mahadceliyo marka hore kabanigii ama shirkaddii haas badrooli ee dhistay macadka ee tanfiidkiisa iyo dhismada iyadoo iska lahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu barakeeyo maalka iyo maskaxda iyo muruqa ilaahay inuu barakeeyo waxaan rabaa inaanu mahadceliyo culimada sheekh cabdiwaaxid xaashi sheekh axmed maxamed salabaan iyo culimadii runtii nabada muddada 7 casha ama 8 casha ku haysay degmada Woodwood oo la isaga yimi taqriiban ilaa 13 magaalo oo muddada 7 casha cilmi aad fara badan seminaaro tababaro wacyi fara badan dacwatu shaara cilmi aad fara badan ka waday degmada oo waqtigoodii iyo dunuufoodii iyo dunuhoodii runtii u soo xiray maantana inala furaya maxadka Shaafici Bayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu cudurada inoo barakeeyo maskaxdooda iyo cilmigooda iyo muruqooda iyo waqtigeena bixin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu barakeeyo waxaan rabaa inaanu mahadceliyo runtii waxaad ogtihiin booskan aynu taagannahay ee ay dhistay shirkadda haas badrooli waxaa waqfay sidaan ognahay ilmo maxamed goox oo u waqfay aabahood waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa aabahood waqfay u waqfeen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ugu naxariisto sadaqadu jaariya aan ka go ilaahay inuu uga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada firdowsa inuu ku siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagana maalka iyo maskaxda iyo muruqa iyo aqoonta iyo garashada ay garteen waalidkoodu dhintay u waqfaan baa ilaahay inuu ku barkeeyo subxaanahu wa tacaala waxaan rabaa insha Allah tacaala inaan mahadceliyo ururka anfac oo marka ugu horeysa ururka leeyahay anfac waxay la bixiyeen magac wacan anfac bay yiraahdeen waxaan rajeynayaa runtii iyagana way saafaceen ummadda way anficeen waxaad ogtihiin ummadda kaga maqan dadka qurbaha wax la koobi kara maaha waxaa laga yaabaa magaalo walba intaas soo qof inay ka maqan tahay oo rag leh oo dumar leh oo aqoon-yahan leh oo siyaasiyiin leh oo waxgarad fara badan leh waxaad arkaysaa haddana runtii anu waxyaalo badan baan ka warayaa oo dadka dibadda xoogaa yar xidhiidh baan waa xidhiidhnaa waxaad arkaysaa haddeerto dadka ugu khayrka badan ee anfacay ummadda waa gabdhihii way allaha barakeeye marka ururka anfac waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga barya ilahay inuu barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala maalka ilahay inuu barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala maskaxda iyo aqoonta ilahay inuu barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala wadamada ay ku nool yihiin ee wadamada reer galbeedka oo wadamo iska dhib badan fidmada wadamada reer galbeedka ay ku nool yihiin iyo dhibaatooyinkooda iyo itixaamaadkooda ilahay inuu ka badbaadiyo insha allahu tacaala iyagana waxaan rabaa qodobkaa ku dhaafo waynu ognahay deegaanadeennan maantanu ka sheekeynayna reerba reerka uu dacwada iyo diinta uga dhow yahay ayuu ka khayr batay ka rag wacnaaday ka dhaqaalo batay dadku dhaqaalahay wax ka fahmaan reerka wax haysta hadaad aragtaan maanta reerar haddaynu isu kala saar reer bayaal reerka wax haystaa ee dhaqaalo haystaa miyi iyo magaalaba
waa reerka dacwada iyo diintu gashay ogaada taa miyaad ku qarsantihin miyaad ku diidantihin reerihii aynu naqaanay sida u kala laandheereysnaayeen sida loo kala tira badnaayo sida laisugu faani jiray sida laisugu waxaan jiray waa shaqayn waaya waxaas tira ma shaqayso laandheernimadu ma shaqayso waxaa shaqeeya quality iyo tayo iyo diin waxaad ogaataan iskuullada secondary-ga jaamacadaha PhD-ga masterka waxaa shahaado maqasheen waxaa dhaama 100 nin oo PhD waxaa dhaama 20 wiil oo diinta huwan oo diinta ku hubaysan ma dhaama guryaheennanu ka aragnay imisaynu aragnay rag tacliin iyo mutacallimo sheeganaya oo lumaya wax allaala waxay la joogaan adan garanay wiilka yar ee maanta macadka ka baxa waxaad arki doontaan berri ka maalin kuwa yar maanta halkaa nashiidayna ugu akhriyay 5 sano 6 sano ka bacda haddii lahaydnu iyaga oo haddayan saaqidin ninkii waalidkii ku mintado ilaahay hagaajiya isagoo hogaamiye ah oo dadka wax u taraya oo nabadgelyada ka shaqaynaya oo dhaqaale abuuraya oo ummadda isu soo dhaweynaya oo reera tabcaya oo deegaanka wax u taraya baynu arki doonaa insha Allah hadalkaas inaan ku noqdo ma aan doonayn laakiin waa iga xusuusin taas oo igintaas macadkii waa loo mahadnaqay intii ka shaqaysayba anu mar labaad waxaan u mahadnaqayaa shirkadahaas ilaahay ha barakeeyo shirkadaas waa shirkad Soomaaliyeed waa shirkad Afrika oo dhan ka jirta ilaahay meeshay joogtaba hal ku nabadgeliyo ilaahay haynoo barakeeyo hadday badhaarto oo korodho wax badan ka badan baynu ka helaynaa macadkan way dhiseen xagga qalabaynta anfac baa markii dambe qalabaysay laakiin haasna way qalabaysay waxay ku qalabaysay muddo 4 sano maalintii macadka 4 laga qaaday ayaan anigu haas u tegey waxaan qalabaynta noo raacay waa qalabaynta nooguma jirin waa wada hadalay maxaad ku qiyaasaysaa ilaa $3,000 haddaad siisaan kuraasi meesha noo sameynaysaa $2,000 bay soo dhiibeen $2,000 ilaa beriga waan hayay ay ku laxal jaamac yar waxaan leenahay wana dhalinyaro ah dardaaran baan siinaya jaamacu dadkaas aadiminka maamulaha uu noqonaysa wax yar baad ka weyntay hablaha imika halkaan nashidada inooga qaadayay wax yar baad ka weynta laakiin mas'uuliyadda iyo caqliga iyo hoggaanka wax la barta maahay waa hiba la yiraahdaa waa hibo haddii hibo ilaahay ku siiyay hogaamineedna macadkaas uu shaqayn doona adna aad dadaashid oo inta ilaahay ku baray aad ku kabtid run ahaantii waqtigan weyn ahayaa jimcihi baa taagan waxaan rabaa 3 qodob inaan kusoo koobo 2 qodob oo mahadcelina iyo 1 qodob oo dardaarana run ahaantii waxaan rabaa inaan mahadceliyo maamulaha igu horeeyay Sheekh Abdiraxmaan Ciise oo run ahaantii isaga la'aantii maanta aysan dadaalkan iyo juhdigan iyo xil wareejintan ay suurto gasheen waxay u jeedaan meel wax laga bilaabi karo ayuu keenay ardada yarka ma sha Allah bilowga fiican jooga wax la'aan bay dhaantaa waa dad bilow fiican jooga ma sha Allah halkaas inaan ka sii wado insha Allah dadaalkaas waxaan isku dayaynta juhdiga inaan halka ka sii wado isagana si mug iyo misaal baan ugu mahadcelinayaa Ilaahay barakeeyo juhdiga aad bixisay sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo labada group shirkadahaas iyo anfac oo loo mahadceliyay loona duceeyay dadkii horaan la qabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u barakeeyo maalkooda iyo hantidooda sidoo kale culimada safarka dheer inoo soo gashay oo culimadana waa weyn oo gobolada inooga timi oo run ahaantii iyadoo nadwo loo asteeyay 7 casho waqtigeeda ay dhamaatay codsigayga soo ajiibay oo madaxda wareejintan iyo xafladda nagala soo qayb galay Ilaahay subhanahu wa ta'ala barakeeyo cilmigooda Ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro inta mahadcelinta iyo ducada ku dhaafo waxaan rabaa in reer Banyaal la dardaarmo reer Banyaalow macadkan sida la sheegay idinka iskale ismahan iyo qalabkan iyo waxa weeyaan meesha quruxda badan idin qurxidinka iskale waxaan rabaa dhismaha kaliya ka taagan waxba ina tarimaayo waxaan idin dardaarmayaa inaad taageertaan waxbarashada macalinka oo kaliya ay waxba ma qaban karo in aad waalidiintu aad noqotaan garbihii macadku ku duulayay in aad ardayda si fiican aad u dhiirigelisaan in aad ardada kale aad ardada dabcan tuulada waxyaalo ay ku dib dhacday waxa kamid ah ka warhayno waxay ku tiirsan tahay wabaadiye marka hoogal yar meel ka daado baa la guurayaa ilmihiina hore ariga hore u sii gaxaynayaan waxaan in dardaarmayaa in aydan waxbarashada arurta aydan kala gooyin oo aad xil iska saartaan arrinta iyada ah haddii aad juhdiga bixistaan anaguna insha Allah wax midho dhala oo macquula oo xaasil baan soo saarnaa walla haddii aydan arrinta iyada garab istaagin ogaada inaysan culimada maqlaysa culimo haddaysan garab istaagin ma shaqeynayso taa markaad ka hada waxaad diyaar moogtaa garab istaagtaan
diyaar mooteer biyaalow أنا ديار دونا ويح جودي إن شاء الله وبالله توفيق. على آدي أدوم أتسين دمان كسوق بقلياش شرفت له وحوي أن هرت محد كوحل فريا إن شاء الله تعالى بيش التضبات كوديد بيش التضبات كوديد ما أنتوا عن ملايين ومثال يلا واتن واللي حيلا توافر عشان كدب أفر عشان كدب معد كاسوا مفتوح وحو فريا هي أركان تلا شيء أركان تمليغان وحولي وسطير الملك أركان توح برشاد وكو أقل أقب أرضي أستاذ سافر ما يسان وتاركانتي أضيقنا كتر أوكا ما شاء الله وين كنا وكتيران أرضي دوم بكم ديون وعلى كاي مادة هذو دون سيدك ولا قرب هلا هذا وأرضي